قدم مسج هانا لا يقول صدر أنا حتى تسكيجا أودر إنستغرام كيجا يعني هذا لا halkaasi gabadhii fartuun waxay ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا داود يا رسول وهذا ومركلة يولالكنا هذا كرامة هلكا طبعا قد دعونا سنة وبركة يوتيوب كل هذا كرامة هدي أي تيمر كجوري سادنا صوب وقت فضلا سبسكرايب تنوشرف ريح جنبرال كعس نقاقف كجوري يسوق على المقالة دي دعوين كردواني حيسار يعني هلكا سوق بيو هدي هروين وريتشوك تاني هدي حتى ينصاب وقت هوا فضلا سبسكرايب ونصار تاني لايك تاني إنه حوشي يسوق برنامج كوبا هو بشدة وجارو aad iyo aadna waad mahadsan tihiin intaasi kadib waxaan ka codsanayaa hadaan wali ku soo biirin barahiga kale ee bulshada sida Facebook page-kayga iyo sidoo kale TikTok-kayga labadaba soo follow gareeya halkaasna waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalo runtii aan rajaynayo in ay idin soo jiidaan walaashi raagi oo cadaynaysa warbixinta waatan waxaan doonayaa raago walaashiina waan maqashiinayaa gabadh cadcada oo isku dhadhajinayaan habar gidir isku dhajiriyaan ayaa arkay habar gidir cad walaaliyaan waxaan waa carab weey habar gidir dad cadcad ma wiilkani oo wiil cad weey habar gidir oo niman dhuxul oo eeg weey dhuxul wiilkana waa wiil cad laakiin ayaa dhalay waxaan doonayaa xaqiiqada dhabta walaasheeya noo cadaynaysa maanta gaari lagu wadi jiray ma fahanteen isagana boosaas aqoon u leeyahay ama aqoon anigu socdo muusan imaan wuxuu yimaaday aabihiis oo yani ka hor dhintay u yimaaday ma fahanteen inuu yani sadaqo bixiyo neef ku qalo oo wax uu maaragtay ninkani raaga cabdilla leeyahay saddex system ayuu watay nimankan ilaa shaanshida ama nimankan cadcadka oo niman maskax badan weey oo hablaha inta badan sixra ama wax u dhiga ama madiida u dhiga weey wiilkani saddex system ayuu yimid kow gabadha inay wada kulmaan laba inuu aabihii neefa fuqalo saddex iyo program isagu meesha u kala waa saddex waxyaabo haddaba waxaan doonayaa iyada laftigeeda ayaa inoo sheegaysaa xagga ay sartu ka qurunsan tahay usu sameeyo u yimaade maadaama ku hor dhintay marka baay macaan waxaa dhacday ninkaas adii haddii sidii ahayd hadda taasna ilmahayga in waxa lagu tilmaamo horta raali kamay hooya ahay qof walba ilmo dhalayna wuu dareemi karaa intaan xanuunka uu hooyo leeyahay ilmihiisa in laga cambaareeyo oo eed uuna lahayn saqi hadii markii ay maqashay baay way ogtahay ma fahamtay wuuna furwaana ogahay aniga ma fahamtay maantana waxay u qaaliladan iyo raaga ugaas way kala tageen oo fiirsada meel ay dib iskugu mehersadeen qof garanaya ilaahay baa naga sareeya Soomaali baa nahay walaalyaal ilaahay baa ina dilaya ina noolaysiinaya meel ay isku guursadeen oo dib meherkoogu dhacayna qof garanaya ma jirto gabadhan marka waxa uu sheekeeyay waan kala tagnay qaaliladan oo warbixintii ugu dambeysay aan ku soo gabagabeynaya hawsha wiilkan oo soo xoobaabiyo walaalyaal hawshan aad bay noogu dheeraatay waxaan ka baqayaa barisahan dambe inay nasiih haysato laakiin waan soo gabagabeynaya hawsha safarkayga dhanaabay ka qaadato hal dalqa ayaa u dhiman gabadha la yidhaahdo qaaliladan halka dalqa hadduu furo waxay noqonaysaa inay soo guursato ayay noqonaysaa nin kale inuu soo mara bay noqonaysaa ninku hadduu saddexdaba ku siiyo waxay noqonaysaa in dib aad u soo guursatay nin kale oo ku soo furo kabacdi ninkii ood ku noqon kartaa warbixintaa sii daaya walaalyaal xitaa hadda ka hor layga wacaano xamdibilan la nool ma fahanti waa dhaarina raagi arrinka ma samayn karo nin Soomaali waa sheer waa la isla leeyahay ma fahanti nin hadda dhaadana guskiisa ilaalina adile ku ceeboobaya wallahi nin Soomaaliyeed shaashada qaraac walaalyaal waa sheer bay tiri waa la isla leeyahay nin Soomaaliyeed tiraadi guskiisa waan ilaalinayaana adiga oon baa ku waalanaya oo maryaha ku dhigaya mid baan hadaba nii sheegaya arrinkan ay hadda soo bandhigtay gabadhani Soomaali Maxamed oo dhan ayaa aad u soo dhaweysay oo ku taageertay inay gabadhani tahay geesiyad
u soo baxday Soomaali si hablaha wax qarsanaya ee wax qarinaya ay u yimaadaan banaanka ayna nin kaste oo ciyaal dhalay ama qof kaste ay u soo bandhigaan runtana u sheegaan habla badan oo baqaya jira oo leh niyadda soo bandhiga bilow si kala noqda ka baxa sanadkii wax la qarinayay ma 2023 ayaa fooday nagu soo haysa oo 5 isha ay ka dhimanta adduunkii waa gabagabo runta iyo xaqiiqada ayaa si toos ah la isku imanaya gabadhan waxa lagu dhiirigeliyay inay taageesiyada Soomaaliyeed ee u soo baxday 2023 hablahana ku dhiirigelinaysa inay Facebook ama dhiibtaan codkooda ayna runta ka hadlaan codkan dhamaystiro oo sii daayo ninkaygu waxaas ma sameynaa before aheyd aniga hambadeeda haraaga ka tigo cuntada reebay guranaysaa yaa u sheegay wax heer waxaa gaara wiilkayga markaa daadahsanaya ay dadka arkaan ay dhahaan anuuna afkayga kala furin alla ilmaha wiil caan u egay yaa waaya baa raaga cabdi wallahi billahi tala hadii life loo arkaa ku dhahay waa isagoo biyo ismarin ma fahamtay afadhihin daadin sanadin wajahadin timaadin beedkuna waaba aragteen ba maxaa bay niga tilmaamay anaga inta sababnoo mid waxa way aabihi ma yahay ila cadeeyo baan ku sheegay xabiibti qadamaas jahana la igu soo diray aniga xitaa taskiga u dir Instagram-kiga yani hadalo u halkaas gabadhi farto waxay ka tiri dhageyso markuu wadada marayo qof aan u eegay yarsuga Soomaalida wada bixin وأنك قلبي وقد عيني أو كمنطقة ساس دور كمان مركا كو أرقنا بعدين الله يا الله دهين بسم الله إلهي وقفوا الرحيم صنع المها بحية ورساء كداي ورقبر مدى شهر دهينا أنك ما أنت مركا وحانك نوات منك سارين ولا لا إنا عنو غير أبيه أنصارك نبناك أنصاركنا سانا يدو قدك منك فأنك قدك منينا المها يروح رحت بدل عصاك كوب الرئيس أصاك هلك تاغنانا دهينو أبني مدي يسالك عقرتهم بأنه لا تاغننا يمان رمناك لك مرة منه المرنمة هذا نسبح شميني جهاب هذا ما قد مرنمة ببا midda hadaba inay haya qaliladan ayaa soo doobtay clip la yaab leh oo xalay markii ay ka tagtay guriga soo doobtay clip dadkoo dhan ay laf anfariiraan waxaan doonayaa clipkaasi hadda waxa la sheegayaa inkuna waad maqli doontiin warsangal ayaa gacanta ku dhigay oo qabtay raago oo ka qaaday DNA-da guri bay ku hayaan waa wararka hadda ay soo gaadhay waxa laga yaabaa inay soo gaadhay laakiin saacadaha soo socda ay soo gaadhi doonaan waxaan kaloo ku hayaa isag maanta 9 codeen hayaba waan fasaxayaa waan soo qabanayaa iga raali ahaado waxaan hayaba maanta fooda ayaa ka qaadaya sababtoo inaan maalinba wax in maqashiyo ma doonayo maanta oo ay ahad tahay ayaan fooda ka qaadaya walaalayaal isniin ay tahay fooda ka qaadaya waxaba haddaan shaydhinayaa waa fartuun saa samayso waayo wiilal iyo gabar ani saaxiibtay ayaa jirtay oo best friend-kayga ahayd laabtano ah oo magaalada ka soo wada cashayn jirnay isagii aniga iyada iyo wiil kale isla raaci jirnay isagana gaari lagu wadi jiray ma fahanteen isagana boosaas aqoon u leeyahay ama aqoon anigu socdo muusan imaan wuxuu yimaaday aabihiis oo yani ka hor dhinta u yimaaday ma fahanteen inuu yani sado afritoonkeedii maya 2020 uu yimaaday aad bilowgiis ma fahanteen marka aniga isagana xiriir aan iga dhaxeeyay dad oo isfahmay oo yani xiriir ka dhaxeeya ah ma fahanteen saani sheegayba marka boosi yimaadina wiilal iyo gabar ani saaxiibtay ayaa jirtay oo best friend-kayga ahayd laabtano ah oo magaalada ka soo wada cashayn jirnay gabagabeynaya walaalkiin aadan karaama tan iyo muuqaalka mid la badan intaan ku kulmayno waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saartaan riixdaan gabalka cas si aad u noqotaan qof walba qofka ugu horeeyay ay soo galaan muuqaaladii dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha aan ku soo gudbiyo haddii aad hore inoo joogtay waad inala joogtay aad iyo aad baad mahadsan tahay laakiin dhammaantiin waxaan ka codsanayaa markaas like inoo saartaan like waa muhiim muuqaalka wayna sii baahisaa oo bulshada ay sii gaarsiisaa fadlan like muhiim ayay tahay like inoogu qabta muuqaalka tan iyo muuqaalka mid lamida intaan ku kulmayna waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadgelyo